assalaamu calaykum waa yuusuf shire isku soo noqod wanaagsan inta aan ku sugnahay ankara xog kooban oo ku saabsan xaalka guud ee bulshada soomaalida ku dhaqan ankara ayaan idinla wadaagin waxaan isweydiin doonaa inta aan safarkan ku jiro ama faloogan yar waay ankara sababta soomaalida ankara ku dooratay deegaanka mihinadaha iyo waxyaabaha ay qabtaan fursadaha iyo caqabadaha magaaladan ku taalla bartamaha anatolia oo ah caasimada turkiga ilaa waa magaalo degan oo ah meemuur shahiir ama magaalo dadka degani badi ay u shaqeeyaan dowladda meeshan oo ah magaaladii aan digriga kusoo diyaariyey oo aan jacaan la dhaho jankayo ku taalla ankara galbeedkeeda ka dhigtay 6 sanana deganaa ayaa intii aan deganaa marna isma dhihin runtii ankara waxa ay noqonaysaa xarun ay soomaalidu sidaan ugu soo badato marka yaa u horseeday waay ankara waxyaabahan is weydiiyo weeye iyadoo ay jiraan magaalooyin kale waaweyn sida istanbul oo ay degi kareen ama magaalooyinka jaban oo ka qurux badan oo ama waay sababta ankara u noqotay xarunta soomaalida ayaan is weydiiyey waxaana ku soo koobay in ay jiraan laba factor midda koowaad waxa weeye oo asalka u ah inay halkaas soomaalida xaran ka dhigtaan waxaa ku taalay hay-adda qaxootiga ee UNHCR soomaali badan oo xuduudka ka soo galay ayaa ankara iman jiray xaggaas ayay iska diiwaan gelin jireen qayb badanna gobollada lagu qorma aadi jireen ee ankara ayay deegaan ka dhigan jireen oo xaafada sitilaar iyo xaskooy oo waqooyiga ankara ayay dadku deganaayeen dadkaas oo badi sii gudbi jiray ama ay UN ku qaadi jireen marka qoysas badan oo kasoo guuray wadamada carabta ayaa kusoo batay oo ankara degay kuwaas oo soomaali badan soo jiitay qodobka labaad ee xarun ay ku noqotay ankara soomaalida ugu noqotay waxa weeye in ay tahay magaalo degan oo ay sahlan tahay inaad gees kastoo ka mida magaalada aad si fudud ku tagtid transportationkooda oo kale uusan aad u dhib badnayn sida istanbul oo kale magaalo qiimaheedu jaban yihiin adeegyadii dhanna ka helisada jaamacado waaweyn iyo isbitaal waaweyn ba ay ku yaalaan labadaas sababood ayaan filayaa inay ahaayeen labadii sababood ugu waaweynaa ee ka dhigay soomaalida inay badi u guuraan ankara dadka ankara degan waxa ay u badan yihiin qoysas iyo dad kaloo xooga iyaguna arday ah oo dhammaantood lagu biilo intooda badan lagu biilo oo ma badna dadka shaqeeyahay ganacsiga ka jirana wuxuu u badan yahay ganacsi adeeg oo u adeega dadka markaasi magaalada ku dhaqan deegaan ahaan magaalada oo ka kooban 26 degmo ama belediye soomaalida waxay degaan waqooyiga ankara inta badan khaasatan xaafada ka jiraan iyo dad kaloo kooban waxay joogaan xaafad la yiraahdo jankaya sidaas ayayna hadda ugu sii faafayaan dhinacyo kala duwan oo u badan waqooyiga magaalada waxaa degan dad lagu qiyaaso 17,000 oo qof oo Soomaali ah sida ay sheegeen ila xog ogaal ah marka haddii aynu u nimaano xaruntooda ganacsi iyo bartamaha magaalada Kisalay aka Somali Stag ganacsiga Soomaalidu wadankan wuxuu u badan yahay sanadii sheegay adeeg meherado cunto timo jarayaal xawaalado xafiisyo baxsha adeegyada sida inay u xareeyaan deegaanka iyo haddii ilaahay ku ogol yahay tarjumaada iyo waxyaabahaas ka qabtira dadka ku dhaqan magaalada waxa ayna badi xarumahaas ama xafiisyadaas ku yaalaan laba wado ama meheradaas ganacsiyadaas ku yaalaan laba wado oo isku xigo Sumar 1 and 2 iyo Fifth Jackmark 1 and 2 oo ah aga bartamaha Kisalay intaas waa xog guud oo kooban iminkana waxaynu u ambabaxaynaa inaanu soo boqono ganacsiyo kale oo ay Soomaalidu ku leeyihiin magaalada oo qayb ka mid ah isla maantaba la daahfurayo
waa tahay haddana waxa aan joogaa xarunta SomTR TV oo ah TV-gii u horreeyay ee af Soomaali iyo Turkiba ku hadla oo laga furay magaalada tan Ankara. faadumo cabdiraxmaan daahir faadumo fatuush mid ka mid ah howlwadeennada SomTR TV soo dhowow wadhawahay Yuusuf Cabdiqani Shire oo maanta igu soo booqday SomTR TV oon kusoo dhaweynayaa Ankara kugu soo dhaweynayaa SomTR TV oon kugu soo dhaweynayaa adii kaamiradaadaba aad baa u mahadsantahay waa tahay Faadumo Cabdiraxmaan maxaad leedahay shacabka ku daawanaya waxaa leeyahay shacabka daawanaya daawada wax ka faa'iida qof wax laga faa'iido waaye saaxiib iyo walaal iyo qaali ah qof qaali aad baa u mahadsantahay waxaa idinkana inaka barayaan dhammaantiin inaad follow gareysaan oo subscribe dhahdaan SomTR TV bandhiga Fatuushna aad ku xirnaataan xog badan baa ka helaysaan aad baa u mahadsantihiin mar kale runtii muuqaalkan uma sameyn inaan dadka kusoo hago Ankara wax kasta sida ay u muuqdaanna ma aha oo yacni ganacsiga wax kasta inay wanaag u kala socdaan ma waa jiraan caqabado kale fursadahaas ganacsi iyagoo jira caqabadahana waxaa ka mid ah in dad badan loo diiday sharciga deganaanshaha in goorta qof ganacsi furanayo uu kala kulmo process aad u adag oo dhib badan oo bureaucratic ah cashuuruhuna aysan iyaguna sahlaneyn qofkii raba inuu wada legal u maro iyo dadka Turkida oo waqti adag maadaama ay ku jiraan dhaqaalahoodu iska adag yahay iyagana ajaanib badan oo wadan ku soo qulqushaan ku qanacsanayn waxyaabahaas dhan way iska jiraan marka haddii aad ku fikirayso inaad degto Ankara ama ganacsi ka furto ha isku hadlaan fiidiyogan oo kaliya waxaa kugu boorin lahaa inaad baaritaan dheer samaysid oo la xiriirtid dadka oo dhinacyo badan iyo xogo badan u ururisid sidoo kale waxaan sameynayaa muuqaalo kale oo badan oo faahfaahin buuxda ka bixinaya ganacsiga waxbarashada caafimaadka iyo deegaanka ama qiimaha lagu dago karo iyo guriga iibaba iyo qaasatan labada magaalo waaweyn ee Ankara iyo Istanbul marka muuqaalkani waa hordhac waa sawir guud uu ka bixinayaa nolosha Ankara la soco kuwan ku xiga safarkeenu intaas ayuu ku soo gabagaboobay Turkidu waxa ay dhahaan Ankara'nın en güzel yeri İstanbul'a dönüş yolu oo ah meesha Ankara qurxoonay waa ku laabashada Istanbul ama wadada loo maray Istanbul safar salaama waa inuu Istanbul iyo muuqaalo badan oo faahfaahin ka bixiya nolosha Soomaalida Istanbul iyo Turkiga guud ahaan